Senatarka ismaamulka Mandera Mudane Cali Roba ayaa maanta oo Arbaco ah galinkii dambe la hadlay warbaahinta isagoo ka warbixiyay xaaladda ciidamada Jubbaland ee ku sugan magaalada Mandera. Senator Roba ayaa xusay in joogitaanka ciidamadaas ay abuureen walaac iyo cabsi ku saabsan amniga iyo xasiloonida dadka deegaanka ah. Wuxuu sheegay in arrintan ay tahay mid u baahan in si degdeg ah looga wada hadlo oo xal loo helo si loo ilaaliyo nabadda iyo xiriirka daris wanaagga ee ka dhexeeya dadka Mandera iyo weliba dadka dariska la ah ee Soomaaliya. Senatarka ayaa waxa uu inta badan ku celceliyay haddii dowladda Kenya ay soo faragelin weyso isla markaasna ka hadli weyso ama wax ka qaban weyso joogitaanka ciidamada Jubbaland ee gudaha magaalada Mandera. Waxa uu senatarku si cad u sheegay in shacabka Mandera ay is abaabuli doonaan isla markaasna ay ku qasbanaan doonaan in ciidanka ay iska dulqaadaan. Isbuucyadii aynu soo dhaafnay shacabka xaafadda BB1 ee magaalada Mandera ayaa dhigay mudaharaadyo ballaaran iyagoo si cad uga soo horjeestay joogitaanka ciidamada Jubbaland ee gudaha magaalada Mandera. Dadka banaanbaxaya ayaa watay boorar iyo calaamado ay ku dalbanayeen in ciidamadaasi laga saaro deegaanka, yiraahdeen midnimada iyo weliba kalsoonida shacabka ku nool magaalada Mandera. Khilaafka ku saabsan joogitaanka ciidamada Jubbaland wuxuu saameyn ku yeelan karaa xiriirka Kenya iyo Soomaaliya, gaar ahaan maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo Axmed Madoobe. Qaar ka mid ah shacabka Mandera ayaa qaba in joogitaanka ciidamada Jubbaland uu kordhin karo amni darrada iyo isku dhaca. Si kastaba ha ahaatee, banaanbaxa ka dhacay xaafadda BB1 ee magaalada Mandera wuxuu muujinayaa in dad badan aysan ku qanacsaneyn xaaladda haatan taagan.